iyo aniga horta ciidan ma waxaan se arko waa ciidanow muuse la yimid dhulkaa lagaa qaadaa haa la yiray wuxuu joogaa annaka waa u tagnaa sadhaana ciidankaan heeyahay wuxuu yidhi dhulkii cawan celinta laygaaga qaado dawladda hantiday iga qabtay iigu beddeshay ee dawladihii jiray ay ii oggolaadeen iina seexana layga xoogi rabahow waxa muga naftirkayna mahaan deganaha qoofku noolaanaha qoofku nool walax kaloon galnaba male xabadda ilaahow naga celi qaxe ma kartiinaan joognaa marka halahaasaan ka ogahay in muuse uun dukumentigaasaan heestaa laygana ma xaajooshow haayo waana lay xoogaa usi joogto dawladdana unuka guddoomiye gobolaa un warramayaan maqlo weynaa dawladda kale hal xaba kama maqalno waa wax soo socdayo wax aruursan ma helno marka haddii xaajiga qoryo ley waa u timiday ay maqashay inay kula jiraan iyo inay ka maqan yihiin aniga haddaan 4 beri ma arago inay ka maqan yihiin inay la jiraan ma helo marka gaadiidka iyo ciidanka u yimid muuse maxaa tirahaan ka ogtahay intay gaarayaan maya xabad kama ogi baanadaana sheegin wallaahi waxba kama ogi sideedane aniga shacabka maha deganaan kamid ah kaaraan degan laakiin waad aragtay Soomaal ciidan oo kuwii hore aan ahayn inay la joogaan senatorka ma arag aniga sideedaba istaafkiisa ciidana u yimidaa la yiray unuga 7 nin unuku ahaan maalin u tagno odayaala waxaan xayihiin la sheegaa wuxuu noo fasiray oo hantidiisa iyo wixii loo madaxweynihii dalka mugaas jooga u seexaya wuxuu na tusay halahaasaan ka ogaha aniga dawladda hoose gudoomiyaha gobolka ee dawladda ka socdo ee arrintan ku jira igu war dambaysa in Cabdi Xaashi Cabdullaahi habeen afraad isu geeyay iyo muuse iyo gudoomiye Yariisow anay dukumeentiga la tusay Yariisow madaxweynaha xayriisu saariise xay gudoomiye baalka wasiirka maaliyadda iyo kii gaashaan dhigaya waxa dhan dukumenti ay la tusay na usugaa noo sheeg marka wax jawaab dawladda xaggeeda ma ka timid maya dawladdana waxaa la leeyahay waa soo carsantaa inay dagaal gasho cawadana la dhowaayaa cawo kasta qoofaan ku jeefanaa saaxiibo marka maxaa ka gashaan idinka odayaashii dhaqanka dawladdii wax ka gashaan oda dhaqan sideedaba wuxuu wax ka geliyaa xalay madaxweynaha waxaa aadeenaa layidhi imaamka abgaal iyo ugaaska walacay ka keeneen dadka lama wadaagin waa uun u tageen madaxweynahana la yiray marka deegaanka waa deganta kullaba adiga iyo nawaaxigeeda maxaa ka jira dadkii deegaanka iyo maxaa hadal hayn u taagan deegaanka dadka degan waxa waaye meelay ku qaxaan iyo baabuur weyn ay alaab ku qaataan xataa meelay maraan ay ka cabsaayaan ay beledkiyaaba wada xirmay dadkii qoofku nool waayaba qoofku nool ma taqaanaday waa jirto marka qoofaa lagu nool yahay saaxiibow dawladdana waxaan u jeedi lahay inay aad nabadda u xeeriso dalka iidaa dawla ka ah dhagax la xiriiriyana xabad tari maayo bulshadana waa cakiran tahay dadka dib ha loo eego naxariis bal ha loo muujiyo dawladdina waxeedi wax ay uga fasiraysa raadiyihi male oo bulshadu xabad u sheegi mayso muuse markaad u tagteen adiga iyo dhowrkii qof ee kale Yariisow cawo hore wuxuuna yidhi laamiga waa xiraynaa laamigana waa xiraynaa laamina hadhoobaan idin dhisaynaa ownay waxaan ku weydiiyey markii aad u tagteen senator muuse adiga iyo dhowr qof oo kale maxay xaaladda kuula muuqatay oo hadalkiisa kaaga dhaxbaxa maya muuse wuxuu yidhi aniga hantidaanaan dhulkan laygaaga bedeshay qof
igala xaajoohaysana male wareegta soo baxdayaanka war helay iyo dhulkaas waa la naqanayaanka war helay waa la naqanadaasna dagaal waayowna yiri laygu soo qaado marka dad kala degan meesha oo mas'uuliyiin ah oo ay saraakiil ku jiraan ma la qabaan doodan mise waa u kaligiis 14 xildhibaan oo suga 15 ku yahay iyo wuxuu noo sheegay 7 generaal iyo ganacsato iyo dad kale oo caadiya iyo waa adiga meesha waa ka waanbari iyo inta ka sugayso waa yaalay marka ma la qabaan dagaalkan iyo doodan iyo xiisada masoo ku kali wallahi aniga saaxiibo waa moogtahay waxaadan ogeyn inaad sheegto waa ku dambaabe nimankaas aniga ma arag hal waa u arkay bulshahan uma arag nin waxaa ku jiro Axmed Nuur Faarax la yiraahdo oo hadda ka hor laga jajabshay oo ilaa madaxweynaha Jabuuti u tagay iyo madaxweynaha hore dibna loogu dhisay xasba ku dunya maxaa dadka Soomaaliyeed ku maqlay u sheegay waa taqaana kulaba meel colaadi ka taagan tahay ama meel cabsi ka jirto iyo meel ay deganaansho ka jirto nawaaxiga meesha dhulka waxaan u jeediyaa dadka dalka waa maantii jabhadaha maahan dawla ka jirto dawladda laga rabaa inay muujiso xasiloonida dhowrto qofkii saa'idana dadka la tuso dagaalna aan lagu degdegina soo jeediyaa markaasaas leedahay calaamado dagaal inuu dhici kara ah muujinaya miyaad dareemaysaa waa dareema maxaa dhul dhan oo la yiraahdo laga kaco wax magdhawana aan laga baxayn dukumenti dawla baxsana heestaan dabaqyana ka dhisan yihiin wax wada xaajoodana ka socon khatara ka iman karto